عدة عدو بدها المشية معها رير قبيل لماها وعدة أدينكو أتكلت كتير وبرخد بطون ومعوها أيه من كهرب معوها أيه اللي بنقول يسمعن نجلس تسمعن ياسر اللي بنقول محمد قتيل اللي بنقول يركي روقي كسب حياة محمد عبيب ها ير إن عبيب ومحمد عبيب ولا بلا اللي بانبا أنت لا فكرك لما أنتوا اللي عدو بيدهوي اللي بانو قاله وكيل هذا دحفر واحد صارت وين ليه إنه كل يبدأني سؤال لأن أرمي كوري مادان وشيله عقوده مكي يدي وهو هاي الدلقات كنوع يدخل بدل اللي يدني سؤال لو يدني سؤال لقوله كتاجوي شويتي نسيبه من الحروب اللي ما وشاوي أرنتا كل قاقبي وحي وصباحه يدنها كبيعته ما أنت شويتي يلا إنك شيله صن أو هاي معارض كيجي وحفديا لما تنصنه أنت ظاهر يا الفدية وحفديا أنت أحمد سيراي أنت موصوفة ديا والرجل فيها خاتية كتاجر منكم مركا هذه ما أنت معارض كيسي هل كان عن كلمة هرجيسة هذا شويتي يلا إنك جلسن داود يال وقت حاضر كان واحد عايز أفهين كور السياسات وبري مدن أفهين محمد فارح ميجنة وكسور وني مدن أفهين والله صعتايو حالها وطن كسبر كان جيبوتي أو مدحون مسبحي وشاقين يتبادسوا أبابليسو هذيك حالة هانا حفلتكم قبسدان مدن كترسن قرها وكيلة وحلوان برخد بطون عارين تسود دي فيه أو وحا وشاقي سوقنا اللفتيسة إن جيبوتي ولا الذي يمين والعلمها يسبر كان هذا قصدي كل مغضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركو كوغر توح السلام يا ددوينا رئيس مالان دمانتود وان سلام يا سلام كبعدي horta arinta aad sheegaysaa yaasro way jirtay oo maalin dhaweyd waa kii madaxweynuhu ka hadlay arinta qoladan Djibouti kulli in taariikhda dib ugu yar noqono wanaagsan dawladii maxamed xaaji ibraahim cigaal markii wadanka ka talinayay Djibouti wax badan oo wanaaga oo muxuu ahaayay dhinaca siyaasadii inoo dhaxaynin dhinac markaad ka eegto shacbiga labada dalba degani waa shacab walaala wax laga yaabaa caailadda Hargeysa degan in caayiladooda barkood ka mid inay Djibouti degan yihiin laga yaabaa reer Djibouti degan caailadooduna bar ka mid inay Hargeysa degan yihiin marka shacabku waa dad walaala ah oo dadka ummadda Soomaaliyeed laakiin dhinaca siyaasadda waqtigaasi maxamed xaaji ibraahim wadankeena ka talin jiray niyad sabab fara badan oo dhinaca siyaasadda inagama dhaxayn jirin oo wararka qaar waynu isku dhacno waqti intay xuduudka xidhaan cigaalla uu oran jiray ama badda iyo hawada waan ku daray marka taasaa taagneyd cigaal iyadoo sidaas ay u xidhan tahay hawada iyo dhulku uu xidhan yahay ayay cigaaltiisii timid wayna xasuusataan mooyaane aaskii cigaal qolo Djibouti ka soo baxday oo diyaarad ahayd baa jirtay oo tii hawada laga celiyay leeyri cilaaqaadkeenu uu go'naa marka aaska kama soo qayb gal kartaa oo ku sidii ku noqday inta markan ka imaado dawladii maxamed daahir yaala kaahin ayaa Djibouti xiriirkeeda furfurtay markii ay furfurtay xiriirkii waxaa moodayay Soomaaliland intooda badani waxay isha ka leelinayeen dhinaca siyaasadda in khilaafka inoo dhaxeeyay inaga iyo Djibouti kor loo qaado in badan ba aad la iskaga gaabinayay iyadoo ay ognahay Djibouti in ay dhinaca Soomaaliland ay aqoonsi raadinteedan ay culays badan ku hayso Soomaaliland waxay isku daysay in goor walba dhinaca ka qarsato oo tiraahdo walaalaheen reer Djibouti daahir yaale oo 7 sano soo xukumayay dalka Axmed Siiraay oo 7 sano soo xukumayay iyo 7 sano maxay musabixiba lixdii hore siyaasadda Djibouti inagu ogeyn inay ahayd meelaha ugu daran ee ka soo horjeeda maxay aqoonsiga Soomaaliland hadana Soomaaliland ay ka qarsan jirtay haatan in marano waqtigan maanta joogno markii ay Soomaaliland kor u qaaday ay hal talaabo hore u qaaday dhinaca aqoonsiga Djibouti wixii ay qarsanaysay in kastoo inaga qarsaneen Soomaaliland ahaan wixii ay qarsanaysay way qarsan kari weeyday kor bayna maanta u tiri inay ka soo horjeedo aqoonsiga Soomaaliland waxaana ku dartay inay Djibouti gudaheega la keeno
dad mucaarid ku ah Somaliland oo sheegta magac la yiraahdo Awdal State oo iska dibad wareega oo gobolkii ay ka soo jeedaan shacbiyadiisii aan haynin anu Djibouti anu maalin Buuramaan joogay waana shirka jaraad ku soo qabtay Buuramaan wax shacbiyada haba yaraatay ay ku leeyihiin ma jiro nimankaasi Djibouti maanta dalkeedii ku casuuntay madaxweynuhu markuu ka hadlayna laba waraaqood ilaa saddex waraaqood oo Djibouti ka soo baxay dhamaantood waxay dafirayeen oo ilaahayeen madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay wax la wax ka jira ma jiro dawladna waa tus oo taabsi oo waxay noo muuqdaa jifiliyadu markane xalay u dambeysay xaflad ka socotay dadka lagu soo dhaweynay marka Somaliland iyo Djibouti iyo samadii muddada 22 sano ahayd dhinaceenna in ka jirtay dhinacooda ka jirin inaguna maanta laga bilaabo waxa weeyaan in go'aan ka qaadano nidhaahno Djibouti sida nolol dhaqanayso si lamid ah ayaynu ula dhaqmanaa taasi intaasaan ka oran lahaa Djibouti waxay noqotay xildhibaanada golaha wakiilada baarlamaanka marka la yiraahdo guurtida soo galaysa guurtidu waa nin waaweyn oo aan inta badan ixtiraam u hayno laakiin golaha wakiilada sidaan hore loo sheegayba inamada jooga waa inama yaryar oo buuriga qabdhinaca siyaasadda ku ah iyo odayaal waaweyn oo af Soomaaliguba aad sodonayso يعني وحنا بدي فاعي كريان قضية Somaliland نماذج يريري أي محاي كل كلاميان ترى بعد ما لينا هنا المغلي ميت كم دولها من كصوماليين وسكوسون نقطة ديدني لما شو تبي يسقي مركز واحد سوينا سا Somali نمدي قرب السبب أشلي عوي من قف قرياش Somaliland كتيرة وكل يلنا يو قرستاجي Somaliland يو أقوسي Somaliland به oo si cad uga dafiri karo baarlamaankii taasi waa isweydiin maasha taala saako u dambeysayna xildhibaankii 22 koona cod reer Hargeysa ay ku doorteen kullu uma leeyahay in Soomaaliya qadiyad ku doorteen ninkaasi oo intii baraha bulshada ku jiray ee macallimiintiisa beenta ka sheegi jiray oo bay dhalinyaradu istigay waa ninka muxuu haayay sheedeeya ayay sidaahdeen bal waxa ku wax ka wanaagsan ugu bedela hase yeeshee maanta 22 kuna cod ee Hargeysa arinta aad bay ugu hungoobeen wayna ka qoomameynayaan marka batun bajida oo kulay way garanayaan dadku aan magaciisa in sheega waxba muhiim ma aha laakiin markaan tirada iyo codkii iyo hinta sheegaba dadku kulay way garanayaan cid aan sheegayo saaka wuxuu yiri wuxuu difaacay Djibouti waa xildhibaan reer Somaliland u daarsan qadiyada Somaliland in difaaco wuxuu ku daarsay kitaab gacanta ku saaray qadiyada Somaliland difaaco looma daarin in Djibouti difaaco reer Djibouti baan ahay buu yiri shalay oo saako wuxuu yiri anu siis baan deganaan jiray cid haday Djibouti sheeganayso dad sheeganayso aniga reer Djibouti ana Djibouti deganaa oo muxuu ahay reekaartaysa oo muxuu ahay waxbarashadeedii ku soo qaatay aniga reer Somaliland oo Somaliland difaacayo oo waxbarashadeeda intii dambe Somaliland ku qaatay waxa weeyaan shacabka reer Djibouti isma hayno laakiin xukuumadda maamulka haysa waxay ka mar haddii ay ka hortimiday lambarkii koobaad ee arrimaha Somaliland kow u ahaa ee dastuurkana kow u ahaa ee go'aanistaaga jamhuuriyadda Somaliland waa muqaddas ahaa cidda ka hortimaada anagu waan saynaa marka waxa leeyahay xildhibaan bildhiibna waxaan daawanayay adigoo Ismaaciil Umar Geelle booqday oo salaamaya adiga kii kale daraad ka hadlayay baarlamaanka ee lahaayeen cidda Soomaali diidan meeshay tagaysay daawad labadii maada ka dambana waadkii Djibouti maalmo dhaw dhexmeeraysanay waa adiguna maalin hore waa muxuu ahay Ismaaciil Umar Geelle salaanta uu la tagay labadii maada waxay ka hadlinayaan oo oga in Somaliland cadow aad ku tiin hadii cid cadowga gudaha sheegto cid cadowga gudaha lagu sheegaya ma aha reer qabiil ma aha waa cid adinku aad ka mid ka tiin waa barkhad batoon waa muxuu ahaayay ninka hore muxuu ahaayay xildhibaan oo Soomaaliyiis soo samaan yaasir xildhibaan oo maxay uga jeedaa xildhibaan oo yarkii ruqi ka soo baxay Maxamed Abiib ha yar in Abiib waa Maxamed Abiib labada xildhibaanba iyo inta la fikirka
dhammaantood waxa weeye cadowga gudaha weeye. maxaad sidaa u leedahay cadowga gudaha waa xildhibaan xasaanad baynu ognahay oo dastuurka awooddii saddexaad ee somalilan ah ama haddaanay awooddii labaad ba ahayn maxaad markaa ku leedahay waxa weeye waa cadowga gudaha. cadowga gudaha markaan ku leeyahay waa xildhibaano ku fadhiya kursi ka mida kuraasidii golaha wakiilada oo gudihii bay joogaan hase yeeshee haddana waxay cadow ku yihiin goonistaagga jamhuuriyadda somalilan manay qarsanin oo ina abiib ma qarsan markaa aad sheegaysa maxamed abiib markad batuna ma qarsan mar kasta oo somalilan cid soo weerarto ama dagaal ha ku soo weerarto ama siyaasiyan ha u soo weerartee waxay ka soo jeestaan xagga ciddaa soo weerarta weligeed maynaan arag iyagoo somalilan difaaciga ka hadlaya hase yeeshee waxay soo raacaan cadow cid kasta oo somalilan soo weerartay dhinacooga ka soo jeestaan sababtaan u leeyahay waa cadowga gudihiina wataa weeye. maxay markaa haddiiba cadow ay yihiin oo alleeda waaba cadowba oo dastuurkiibay ka soo horjeesteen maxay ku mutaysan kartaa. waa taan isweydiinayaan lahaa somalilan goorma ayay sidan u jilicday ee xildhibaano golihii wakiilada dhex fadhiya oo xasaaradii weligiina leeyahay inay ku dhiiradaan in somalilan arrimaha ka hor yimaadaan waa jilic gudaheena ka yimiday waa muxuu ahaye dulqaadka noocii doqonnimada la odhanayo somalilan gudaheega ka taagan weye. marka ana waxaan leehay xildhibaanada iyo kuwa la halmaalaba somalilan haddii ay tallaabo ka qaadi weydo kiiba ka hor yimaadeen oo qodobkii koowaad ee goonistaagga jamhuuriyadda somalilan bay ka hor yimaadeen waa in maxkamadaha lala tiigsado nimankaas xasaanadu maalinta uu qofku ku hor yimaado somalilan ay xasaanada ay ku lahaayeen xasaanadaas way dhammaanaysa farahana la iskula tegi. marka fariintaad u diraysa xukuumadda iyo maadaama xukuumaddu lafteeda ay iyadu arrintan inay ahayd inay soo farageliso maxaa u diraysa farageliso arrimahan isbarkan haddiiba ay og tahay in jabuuti ay jabhadii ka soo socoto oo ay dowladda jabuuti ay jabhado awdal sheegtay inay xoreynayaan ay dabada ka riixayso xukuumaddu ma hadal unbaa meesha u yaala miyaanay u welin ficil inay arrintaa kaga jawaabto oo ay dunidii iyo beesha caalamka la hadasho oo ay arrimaha waraaqahani jabuutiba iyadu qoraysa ay qorto. waa waajib la yaalla xukuumadda oo meel kasta oo ay somalilan u maraso muxuu ahaayey aqoonsigeeda horta iyagoo wadasaa jabuutina sidaa madaxweynuhuba u sheegay arrintaa ay ku dhaqaaqday wixii uga soo baxa iyaduna ha ku biicabto. jabuuti waanu ognahay mucaarad badan bay leedahay iyadaa maanta inaga jilicsan jabuuti maanta jabuuti iyadaa inaga jilicsan oo waxay haysa mucaaradkii jabuuti wuxuu fadhiyaa 20 sano intii daahir yaalu fadhiyey wuxuu fadhiyey intii axmed siiraaye intaas muusuu fadhiyaa warna jabuutiya khaatiyaan ka taagan ninkan marka haddii aan maanta mucaaradkiisii halkan aan keeno hargeysa eedhe jabuuti iyadaa inaga jilicsan marka ficilkaa somalilan waa looga baahan yahay xukuumaddu waana waxba u habran maanta hadday xadka xirayso hadday mucaaradkii iyo jabuuti ku marti qaadayso hargeysa intaba way u bannaanta.